ما بس لكن حتى كورس لكن إلا غادي فأمر لي فاصل حين كان يرئي رادين أرجيت أن أفرح لنا السياحة لقد يرئي رادين عرفتي أول الجيبي كذا عشو كذا لقيتي وحدني الجي المال يرئي رادين على الملك وتحن ضغن دون المكان جوبي لما بقول بيت المكان قاعدين كثير ميجا مكوين جديد أرجيت كان جستا أنا كذي فهرجيت وبورتا شيء ويا لكن كل أوادي بيشتي مكان قاعدين لما بقول بيت شيء أنا كستفهم أنا والله بقى كلي أنا أرجيت أنا كده حجرة أرجيت أنا كده حشقت جري بلح كدن بيان كارك زعما يريد كلمة ومحاضرتك عن تقول مركز على عدوده فقدتها وخلع وانا محاضرتي حيلا على قطن لا ادخل القدس داو كنت عندي وقت يريد الوجود ده هذه لما كنت الجيل اللي فيه لا ما هو إلا شيء ما تقدر على الجبرة يا رجل الإنسان على الأمر ما تمشي يدنا ميدون أنا أكون على الأمر أكون محل إنسان قاضي مركز ما كان يجوز ولا ما تقدر عليه الكلمة اللي عملنا ما تقدر ترى في حتى بلد بقى لفرصة بس أمانته بس أمانته الرجال عجيب سبعة كذا الحال ماذا صح إنسان سبعة أفضل من الحرارة أفضل من الحرارة وين يجي من الغرب أصلا قرأ كتاب السؤال خلاص الحلا يصير هذا قاسم هذا جمع لا يصير أما هذا استغل لكن غير ما مش شنو يعني أنا فات على بربر أنا كان بربر على بربر كان بربر حاجة سر يعني بربر حاجة سر يعني مثلا يقول لي أنا سر يعني شو هاي يقول لي بكل ليه المين العالم ده أنا في أساس من الكلام ده كان يقول لي من ده كل الناس الكل يعني يدري إنشاء نعم واحد بيعتبر تشويه يشوف مايح يحترمين ويشتري يشوف يحترمين ويشتري تدريب يجري تدريب كل فترة بس سؤالين حتى ما لا كلام لا لا المدربين ممكن يعملها إذا ما لهم تسرق لا يستمر بس كل جرم حاسس له أنا بس أعتقد إنه يتحدث هذا فقط فسأل محاضر صار في المدرسة أصلاً برا برا أصلاً فهي لما أصلاً كثير حاجة أصلاً كثير حاجة غير كلها حتى سمع بل سألنا يمين أجل أثر حمد حتى لو كبرت من زرع يبغى من الأرض الأرض يجوز كذي صارت سنة صارت سنة جماعة الجماعة يمكن تلاقي يمين دور قد كان كهوتان أنا أقول كان كهوتان إذا ما كان كهوتان رأيك سامع حوي وإذا ما كنت سنة أصلا وأنا إذا ما متفائل فقط يعني يسمى هذا الدباب يسيرة طاول يا إذا كاس وإذا كي يغني سلاشين سلالات وأنا إذا كدينا إذا ما كان سلام سوف ciidankaas waa ciidanka duwanaa ciidamada kale ee ma sheegay sababtoo waxa weeye ciidan aan ka dagaalamin meel jooga deegaankiisa hadda dadka aad deegaanka u ahaayay deganaa ma aha ciidanka kuwo deegaankiisa ah waa ciidankii la magac baxay ama loo yaqaanay loomeeyaanka haddaba daawada si fiican u daawada waxa la gudbiyay sawirro ciidanka laftiisa iyo qaar ka mid ah waxaad arkaysaan sawirro ciidanka iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ciidanka sida محمد عمر أسكر الجبراء يقع لبيع وأما تنسين داوية وكثرت المشاهدين السلام
iyagoo kaashanaya iimaankooda iyo niyaddooda adag bal jacaylkooda iyo nafuridooda waxa ay ku guulaysteen inay soo degaan guuladeen xeebaha iyaga oo dameero wata iyagoo intan ka tira yar maantana waxay taagan yihiin heer ay ku haystaan qalab hub rasaas iyo gaadiid intaba intii la doono ee uu ciidan lahaan jiray haddii uu halkan afkeena soo sugay taangiyo beebeeyo haddii uu ciidamo maraakiib ku keenay wejiyada halkan ka muuqda ee arkaysaan ayaa cagta mariyey dagaaladoodii ugu dambeeyey ee ay jiri ku dhaafeen waxay ku guulaysteen inay dilaan oo ay gacanta ku dhigaan gebi ahaanba taliskii gaaska koowaad halkaasoo uu ku dhintay taliyihii gaaska koowaad gaashaanla sare maxamed faarax ciidamadani waxay u muujiyeen iyagoo kaashanaya ilaahay iyagoo xaqa kaashanaya iyagoo shacbiga soomaaliyeed kaashanaya iyagoo kaashanaya hagarbaxa dadka dadweynaha soomaaliyeed ee deegaanka degan iyagoo kaashanaya walaalahooda kale ee SNM oo goob kastoo uu cadowga joogaba kula dagaalamaya ciidamada SNM guud ahaan oo ay kuwani ka mid yihiin liibaan iyo jiilaani waxay dadweynaha soomaaliyeed u muujiyeen in afweene la ridi karo waxay ku dhiirigeliyeen dadweynaha soomaaliyeed in ay gacanta u qaadaan inay iska ridaan taliska afweene waxay muujiyeen oo ay sharaf dhac iyo haybaddac ku rideen ciidankii taliska siyaad barre oo waayada qaarkood ku faani jiray inuu yahay ciidamada ugu xooga waaweyn afrika waxay muujiyeen oo ay taariikhda ku qoreen in kelmad taliyayaasha lagala hortegi karo quri caaradii oo lagu soo dhacsan karo karaamadii iyo sharaftii uu shacbigu lahaa maanta waxaynu joognaa waa ceelgaal nidaamka siyaad barre waxaa laga yaabaa inuu in badan ku andacoodo inaanay ciidamada SNM joogin goobo badan oo ay ka mid yihiin looyacaddo sayla duubhaya ceelgaal jidis halkan hortiina waxaanu ka caddaynaynaa lama wada joogo meele in maanta halkan ay joogto SNM inaanay maanta halkan sawir ku qaadi karin kana hadli karin ciidamadii siyaad barre halkan waxaa ka hadli karaa halkan waxaa joogi karaa oo muuqaaladoodii aragtaan waa ciidamadii xoreynta ee SNM gaar ahaan jiilaani iyo liibaan